dadka qaba cudurka HIV/AIDS-ka ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay la kulmaan faquuq joogto ah iyo inay si gaar ah bulshada looga dhex sooco marka la ogaado inay qabaan xanuunkan. Waxay sheegeen in xitaa helitaanka adeegyada aasaasiga sida waxbarashada ay takoor ka wajahaan carruurtooda. Qaar badan oo ka mid ah ayay arrintan ku reebtay dhibaatooyin xagga nafsiga oo soo wajahay, sidoo kale aysan haysanin wax daryeel ah. Dadka xanuunka la nool ayaa waxa ay ku doodayaan in cudurkan uu ku imaan karo siyaabo kala duwan ay ka mid tahay qadar Alle, dadkuna ay tahay inay fahmaan in xanuunkan lala noolaan karo. Siyaabaha uu xanuunka ku faafo ayay dhaqaatiirtu ku sheegeen inay tahay 3 arrin oo kala ah: galmada, in dhacaanka qofka qaba xanuunkan uu ku gaaro, iyo hooyadii iyo dhallaanka xilliga foosha. Haddaba waxaa inoo suura gashay inaan wareysano Fartuun, ma ahan magaceeda saxda ah. Waxay inoo sheegtay in xanuunkan ay la nooleed muddo ayna ka qaaday ninkii ayada qabay. Faquuqa ay la kulantay ayaa waxa ay ku sheegtay in hooyada dhashay ay guriga ka soo burisay. Bulshadana markii ay ogaadaan in xanuunkan ay qabto laga raro guriga ay degan tahay. waxay u dhacay 4 sano camal waan qabaa oo malaha hadda ma ka saay dhowr sanad waan qabaa. Waxaan ka qaaday ciyaalkayga abood. waan iskuursanay dhowr ciyaal 7 ciyaal markaan u dhalay. wiilku wuu xanuunsan, si lagu ogaaday wiilku wuu xanuunsaday, istaala la geeyay. Horta dhowr bilood uu jiifay, ninka looma maleeyay inuu xanuunkan hayo. Marka ugu dambeyn uu sakaraad u noqday, waxa la geeyay istaal. Dhiiga guud baa laga soo qaaday, cudurkaas la yeelay. Marka uu waan lahay markii farmashiyo istaalka la geeyay, waxa lagu soo sheegay cudurkaas si saan ku ogaaday ma ogaan lahayn. May 7 ciyaal markaan dhalay ayaa lagu soo sheegay. Horta cunug isagoo qabo baan cunugayga nadiif u yahay, haduu ii jooga waxa ma qabo. Waan dhalay kii labaad soo uurkiisa u leekay kii labaad waan dhalay mugti. Kii kale markaan uurkiisa aan la waa gabar haduu ii joogtay taas lagu soo sheegay inuu xaamile ah. wiilku wuu geeriyooday. naag kale uu qabay iidan way geeriyootay. ilmo ciyaal haduu joogan hooyadeeda haysato. ninkii sisan ku ogaaday ani wallahi si xun guri aan ka soo gurada waan guri 3 guri waan soo degaa u maleynaa. dukaan ilmahayga waxa kama soo gadan karaan. waxaan ka soo gadanaa suuqarada adeeg rabno. hooyadiina cudurkaas loo nooleeyay adii ninkeeda waa qabtiin. ilmihii qutada iga galiyeenbo tamay hooyaday macaana ay soo fiijaan ruux kale bil aadan breegmo uu qabanay. waan ka soo guuray guri kale aan galasas oo kala dana dukaanka taa heer waxaan gaarnay inaan wax naga gadan way anaga. hooyaday waan weydiiyay taa heer waxaan gaarnay inaan dadkan walaalahayga oo asla maxalli jir oo groupkayga inaan u keeno taa heer waan gaaray. waxay tiri liima keenayaan. Caqabadaha ay la kulmaan haweenka la nool xanuunkan ayaa waxaa ka mid ah in ubadkooda lagu takooro xanuunkan ay waalidkood qabaan. Caasho ma ahan magaceeda saxda ah. waxay xanuunkan la nooleed muddo 13 sano ah. sida ay sheegtay waxay xustay in bulshada ay ku hayaan faquuq ba'an. xanuunkan wuxuu u dhacay 2010. waxaan ku ogaaday Kenya joogay. wuxuu Kenya ahaa. marka waxaan xanuunsaday xanuunka dad Soomaalida ay xanuunsato waa ogtaada Quraan la saaray xagga laga gaaray waxa la isdhahay Soomaal. adiga ilaa amarkiis nabara iga soo baxay. nabarkaas adana nabra kala waxay soo baxeen lugaha iyo korka dhan oo dab dhul camal ah. nabraas marka arkay aniga nafteeda kaliya fikirtay oo waxaan isdhahay cudurkaas ama qabtaa. cudurkaas dadka lagu sheegi jiray nabrahan dab dhul kale. marka adana wiil isku wanaagsan waxaan dhahay walaalo shaki aan iska qaaday oo cudurkaas inuu jiro inaan soo baaro halka booska ay kiisan rabaa. halka booska iska soo baaray oo wiilku ilaa banaha maxaa uu dhiiranaysaa inuu cudurkan ku haayo qof uu haayo uma ekid maxasan. marka waxaan leeyahay anaa u baahan inaan is ogaado qof kasta caafimaadkiisa inuu ogaado u fiican. anaa og inaan ogaado ma iska shaki. waa halka booska laga soo baaray cudurku waa laga helay. Gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV/AIDS-ka Cali Daawud
ayaa inoogu warbixiyay dhibaatada iyo faquuqa lagu hayo sidoo kale wuxuu sheegay inay la kulmaan caqabado kala duwan. barnaamijka aniga markaa soo banaanka soo dhigay waxay 2016 muddo hadda laga joogo 8 sano marka waxaan lahaa muddaada iyo dadkaaga iyo dalkaaga badbaadi si ay jiilka soo socdo oo caafimaad qabaan laakiin nasiib darro dadka ilmo ayna fahmin inta badan inta aan u taagnaa 8 sano wax inta aan wareysi bixiyay ama dadka ka hadlay war xaaladda ka hadlaysay maxay ahayd xagee wax maray ila dib igu soo noqon ma arkin marka welina kama daalayno oo halganka markaa wado mirihiisa dad kala gurto ama adiga gaaro marka waxaan bilaabnay in dadka ay sheegaan HIV la nool xanuunku inuu xanuun caadi yahay dadkeena kuwa dambe jiilka naga dambeeyo ay sheegi karaan oo magacooda banaanka dhigi karaan ay istigmada ka baxaan caqabado badan baa jiro caqabada noogu daran hadda waa guri la'aan gabar baa HIV positive laga soo helaya gabadha marka laga soo helo reerkooda way faquuqayaan ma aaminsana intii lagu wacyigeliyo gabadha waa la daarinaya gabadha marka guriga inka carartay noqonay guri aan ku hayno ma hayno dinoo soo sheego. Axmed Casiir Xaaji Maxamuud oo ah madaxa waaxda HIV/AIDS TBda wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa inoogu warbixiyay waxa uu yahay xanuunkan iyo siyaabaha uu ku faafo wuxuuna sheegay in tirada dadka xanuunkan qaba ee la nool ee ku sugan magaalada Kismaayo ay gaarayaan 71 qof oo daawada xanuunkan qaata isla markaana ay ka warqabto wasaaradda caafimaadka Jubbaland. ma sabtahay xanuunka HIV wuxuu ka mid yahay horta xanuunada ku dhaca dadka xanuun uu virus xanuunkaas oo adduunka dhan ka jira Soomaaliya qayb waxay ka tahay adduunka qayb ka tahay Jubbalandna Soomaaliya qayb ka tahay marka Jubbaland ahaan annaga hadda xanuunkaas wasaaraddu waa ka warqabtaa dad baa la nool hadda Kismaayo kale waxaan maranayaa daweyna qaataan dadkaasi dadka dawada qaata oo hadda la nool oo la og yahay macnaha dad badan baa la nool laakiin inta anagu aan ognahay Kismaayo kale waxaan maranayaa ilaa 71 qof meelahaas dawa qaata qaybta gobolka Gedo kale qayb dadka joogaahi waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan usbuuciyadan furno qaybta doolow laakiin hadda baydhabo dawada ka qaataan degmooyinka dadka kala jooga wasaaran marka aan ku sheegay anaga marka oo horeyso horta waxaan noo ah qofkii in la helo waa muhiim noo ah qof kasta oo xanuunkaas ku dhaco sababtoo dadku waxay ka aaminsan yihiin istigmada ay ka qabaan xanuunkaana dhib badan ku ah qofka marka laga helo wacyigelin baa loo sameeyaa inuu daawada qaadan karo oo daawadan hadduu qaato uu la noolaan karo xanuunkan baa loo sheegaa intooda badanna waa yeelaan daawaday qaataan daawada dad badan la nool hadda waxaan maranayaa qaarkood 12 sano uu qabo dawada ay qaataan la nool yihiin caadi dadkooda ay ka mid yihiin. dhanka kale waxa uu ka hadlay in bulshada ay ka digtoonaadaan xanuunkan ayna isbaaraan marka ay dhisayaan qoys dadka haatan la nool xanuunkan ay ka daayaan faquuq iyo dhibaatada ay ku hayaan kale oo aan sameyn karna ay tahay inaanu ka hortag sameyn karno sidoo kale meesha kale aan rabo inaan ku baraarujiyo ayadana ku gudbo laga yaabo qofkii qof sheekh ah qof ii sheeg culimo qof aan waxyaalaha ku dhac inay ku dhacdo qof kasta oo guur sameynaya macnaha ma aha inuu ku soo gudbi karo qofka guursanaysa inuu xumaan sameeyay laakiin wuxuu ugu soo gudbi karaa ilig buu iska baxshay si kale uu ku sameeyay wax ugu soo gudbin si kale ugu soo gudbi kartaa laba qof oo isguursanaysa oo kasta in isbaaraan hada bilhii u dhameeyay xarumaha qaarkood kuwa la baaray waa laga helay hadhow si kale u fakada marka qaarkood waxa dhici karaysa dhibta dadku waxay ka aaminsan yihiin xanuunkan hadduu qofka ku dhaco inuu qofku nolosha ka qustay heer marka wuxuu gaaray isleeyahay yaan lagu ogaan yaan lagu arkin oo bulshada laftigeedu dadkii daweynay laftiisa ka dhuumanayo marka qaarkood way dhacdaa taleefankiisa hadhow bedesho meel ka baxana la waayo. daraasadii ugu dambeysay ayaa muujinaysa in 66% ay ka waxtar badan tahay daawada ka hortagga caabuqyada HIV/AIDS marka loo eego kaniiniyada caadiga ah ee maalinlaha ah. Abshiraah Cabdirashiid Xuseen, Jubbaland TV, Kismaayo.